degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garab ah iyo wadaadada hubeysan ee Ahlusunna wal Jamaaca. Dagaalkii ka dhacay degmada Gurceel 23 ilaa 26 bishii hore Oktoobar sanadka 2021 ayaa waxa uu galaaftay saraakiil iyo ciidamo isugu jira labada dhinac, waxayna hogaamiyaasha Ahlusunna kal hore dusha ka saareen mas'uuliyadda dagaalkaasi hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo saraakiisha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka Galmudug. Dagaalkaasi kadib waxaa dhacay wada hadallo amiro dhalin ee laga galay Ahlusunna kuwaas oo dhowr jeer isku dayeen bulshada reer Galmudug, hase ahaatee kulamadaasi waxay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan kadib markii la mari waayay wadaadada Ahlusunna oo la yimid shuruudo adag kuwaas oo qaarkood hadda aan suuragal ka ahayn Galmudugta maanta jirta. Shuruudaha ay wadato Ahlusunna waxa ugu adkaa inay helaan madaxii xukuumadda Galmudug oo hore xilligii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf u hayay laguna qanciyay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya ururkan, iyo in Galmudug ay la gogol dhigtaan iyagoo ah laba dowladood oo wada siman. General Aadan Abshir Nuur laba afle oo ka tirsan saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa shaaciyay natiijo la'aan ku soo dhamaaday wada hadal Ahlusunna uu la galay 12 maalmood ee la soo dhaafay. General laba afle waxa uu sheegay in asaga iyo saraakiisha la socotay oo ay soo wakiilatay dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kalena ay la tashadeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor si loogu kala dab qaado Ahlusunna iyo Galmudug, sidaasna ay ku tageen deegaanka Bohol oo fariisun ah wadaadada Ahlusunna 40 kiiloomitirna u jira magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Generaalka ayaa sheegay inay hadda ka gacan taageen dhexdhexaadinta ay ka dhaxwadeen Ahlusunna iyo Galmudug kadib markii wax kasta oo xal ah uu diiday hogaamiyaha Ahlusunna waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale General laba afle oo aan si toos ah u gudagelin waxyaabihii ay kala kulmeen Ahlusunna ayaa ku soo gaabsaday in Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan uu kula kulmeen hadal aan ka duwanayn kii hogaamiyaha Ahlusunna Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, isagoona sheegay in Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wada hadal la galayaan iyagoo ah maamul buuxa ee ka jira maamulka Galmudug. 12 maalmood ee la soo dhaafay culimada waxaan ka wada hadalnay inaan la isdilin oo ay nabadda qaataan, warkeenu waa ku socon waayay. Hadda waxaan ku soo laabanay Dhuusamareeb wixii amni ahna waxaan aaminsanahay in maamulka ka jira Galmudug uu mas'uul ka yahay. Aniga qaraabo ahaan, sarkaal ahaan iyo dowlad ahaanba wixii aan kala hadalnay Ahlusunna waxba way ku qaadan weysay, ayuu yiri General laba afle. lama oga cidda dabada ka riixaysa dagaalkan iyo weliba goorta xal rasmi ah laga gaari doono, hase yeeshee suuragal ma tahay in madaxii xukuumadda Galmudug mar kale lagu qanciyo Ahlusunna? Su'aashaasi jawaabteeda adiga ayaa iska leh.